guutooyin ka tirsan ciidamada SSB ayaa u ruqaansaday magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag iyadoo halkani muddooyinkii ugu dambeysay laga horinayay colaad ay rabaan inay kula wareegaan beelaha harti magaalada tan ilwareedyadii ugu dambeeyayna waxa ay sheegayaan hub iyo ciidan wixii ay hayeen inay soo duldhigeen magaalada Ceerigaabo taasi oo haatan dhinacooda aanay waxba dhulka ka oolin halka dhinaca Somaliland diyaar garowgooda iyo istifaacoodu aanu jacsanayn oo dabku uu ka dhacsan yahay haddaba maxaa sababay inay Somaliland sakrato daandaansiga iyo duulaanka magaalada Ceerigaabo maxay tahay sababta ay ciidamada SSB ugu ruqaansadeen dhinaca gobolka Sanaag warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa wararkii ugu dambeeyay tan iyo markii laga soo falaxashay colaadii magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo ay guulama filaana ka qaadeen beelaha dhulbahante ayaa waxa bilaabantay in magaalada Ceerigaabona lagu xijiyo taasi oo uu ku xidhan yahay hadafkii iyo hamigii ay u halgamayeen ama haw suuro galo ama uu suuro gelinay tan iyo intaasi waxa socotay ishubayn iyo in magaalada Ceerigaabo laga sameeyo rabshado joogto ah kuwaasi oo lagu kicinayo dadka deegaanka si ay ugu arkaan in loo dawladeynayo marka dablay hubaysan ay soo dhex gasho magaalada oo ay isku dhacaan ciidamada nabadgelyada ayaa inta badan waxa dhacaysa rasaasta wiiftada ah inay dadka shacabka ah wax yeesho iyo in dablaydii hubaysnayd lafteeda la soo qabto ama se la laayo waa sababta kaliya ee kacdoonkii Laascaanood ay guulaha kaga gaadheen magaalada Ceerigaabona haatan qarka ayay u saaran yihiin sida ilwareedyadii ugu dambeeyay sheegayaan ciidamo isbaahaysi oo aan tiradoodu yarayn saanad milatarina lagu soo hubeeyay ayaana la soo duldhigay inkasta oo aanay sida wararku sheegayaan baraha bulshada ugu dhoweyn magaalada Ceerigaabo oo duleedkeeda ay sheegeen inay joogaan warbaahinta xuquuqaal oo dabagal dheeraad ah samaysay ayaa ogaatay inaanay u dhoweyn oo u jiraan in ka badan 80 kiiloomitir hase yeeshee ujeedka iyo qorshaha ay halka u joogaan ay tahay sida ay weerar toos ah ugu qaadi lahaayeen magaalada tan nabdoon dadka deegaanka magaalada